وأغنى مقالة قروي أما بنتلان وحمان والبيمادة لأن يرعانا وكيم سومالان يهرقيسا تيك توك الرو وريال يوتيوب الرو كوا باسا بوهر الدونايا باقروي ماذا تيك توك وهالكا تيك توك استعماله بوها حتى رأيت فيسبوك استعماله يوتيوب هذا ما هين هو وحشيغا wax lagu haysano ma garanayno musaka waxaan leenahay musabixiyo waa ku ceeboodin marada ka dhacday marada kaaga dhacday bisaas ay ixtiraaf ku raadinaysa halista ubanaya wiilka ina wabar wiilka si ilaahay xanuunkaas ka dulqaado maanta bastiga kan soo qol ay leedahay qof idin kuma jawaabi karo xanuunkayga ma sharaxi karo laakiin ducada igu soo kaalmeeyay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإذن سلام الصومالي محمدي waxaan rabaa caaw inaan ka hadlo wiil tiktoker oo la dhaho Cabdisalaam Dhiidhiyo oo reer Puntland gaar ahaan reer Qardhooda madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi in ka badan 4 bari uu xiran yahay magaalada Hargeysa inaan caaw ka hadalno wiilka wixii lagu haysto marka intayna ugu dagelin hal qodsi muuqaalkan hadduu idin soo gaaro like ta ina ay tuujisaan ina share gareysaan asxaabta la wadaagtaan bogar follow YouTube kana subscribe commentigana soo dhiibti intaan Cabdisalaam Dhiidhiyo wiilka tiktokerka oo Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland uu saa ugu dhagaya oo ka lusho intaan ka hadlin waxaan rabaa marka hore inaan ka hadlo gabadhan halkan sawirkeeda ka aragtaan waxaa la dhahaa Nadar Garaasi wariyaasha reer Puntland kuwooda ugu firfircoon sawir qaade meelo badan oo deegaanada Puntland soo madhay TV-ga Puntland ka tirsan baan maalmahan waxa dharkaaya iyadoo loo ducaynayo oo xanuunsan marka hore ilaahay ha caafimaadiyo gabadhaas aynu u soo ducayno faatixada u soo marno inuu ilaahay xanuunkaas ka dulqaado maanta bastiga kan soo qol ay leedahay qof idin kuma jawaabi karo xanuunkayga ma sharaxi karo laakiin ducada igu soo kaalmeeyay marka nadar walaal nadar waa u ducaynaan in ilaahay xanuunka ka dulqaado xukuumadda Puntland oo ay TV-ga dowladda ka tirsan maadaama shaqaale dowladda tahayna inay gabadha arrinteeda galaan akhtar u qaadaan fariinta halkan uga diraya intaas kaga baxay nadar iyo xanuunkeeda oo aan u ducaynayay waxaan rabnaa inaan u guda galno Muuse Biixi wiil dhalinyaro ah oo tiktoker oo la dhaho Cabdisalaam Dhiidhiyo baa magaalada Hargeysa ku xiran marka wiilkaas xarigaas waa la dareemayna dhibaatada waa la dhaqmanaynaa madaxweyne Muuse Biixi halkan fariin uga diraya war waxa leeyahay mudan madaxweyne ninka dhalinyarta tiktokerka wax dhibaato ama wadin magaalada dalxiis iyo damaashaad buu u yimi waana wadan isu furan oo deewaal isu tagi kara wiilka dhalinyarta ah soo daa waa ognahay magaalada Garowe ama Puntland waxa maalin walba yimaada dhalinyaro caana oo ka yimi Soomaaliland iyo Hargeysa tiktokero wariyaal youtubero kuwa baasa boohra doonaya baa Garowe yimaada cidna kuma xad gudubto dantooda ay qabsadaan marka wiilka dhalinyarta Soomaaliland waxay ku haysato ma garanayno waxa la yiri waxa laga soo sheegay ama la sheegay waa askari hadda nin dhalinyaro ayo baashaalayo tiktoker oo dalxiis u yimi oo dhaqaale ay soo gelinay hoteelu kireysana saa ogtahay dalxiiska dhar buu gadanaya shoobin dhaqaale Soomaaliland soo gelinay kadib masaasay u xirat Muuse Biixi masaasa waxa ku doonaysa ixtiraaf وأدون وين وحلا الاعتراف هذين اعتراف هنا لا أقنصل هنا لا يل أنا يتيرك هايلو ده الكود الجعليدو تيك توك هذا هايو نصوب بقضي أسود ويسين بس أقول ليس هي سمعنا ودت جبه كنت أد ودخ مدين وإحنا كنا يربنا تيك توك راه كو يوتيوبره وكهلا أريدي يكو كلا شعب برا بس استعماله لكن كالي تلسك Muuse Biixi بأرنتاس ويل كيرك عايزته وحكو عايزتنا لما يجتن ويران وإن الشيء أو محكمة الصارة أو لصان إنسان الله هست وعن وجه مركو جذاب من الجوجي قفة واحد جرا مركو ماكل الجوجو حوجا واحد تورة هدو خد كاستعماله إن كان يرتاح من واحد تورة من مدى الدلع وبشرة مدى الدلع وتيك توكر وهالك خد تيك توك استعماله بوها حتى رأيت فيسبوك استعماله يوتيوب هذا ما هين هو الشيء واحد لو واحد صانع وما قرناه Muuse Biixi maxaa khaldan adii ciidankaaga madaxdaada arintaas ha ka dhidiyeen gudoomiyaha Hargeysa nin dhalinyaro firfircoon buu ahaa hebel mooge waxaan rajaynayaa inuu arintaas ka dhidiyo tan kale waxa la yaab leh madaxda Puntland
haddii ahaan lahayd wasiiro xildhibaano taliyaal ciidan xukuumadda madaxweynaha ugu sarreeya cid ka hadashay ilaahay ma jiro meel lagaga hadlay atleast waxaa lahayd maadaama dheeraay oo ciidanka ku jiray sida la sheegay dhidiyo in bahda ciidamada taliyaha ciidanka uu hadlo dhowr intaas uu shir jiraad ka soo saaro war saxaafadeed ka qabto dhalinyarta reer puntland keliyaan arkaayo hadlay oo ka dhidhiyey oo baraha bulshada isticmaalay xataa wax qof macquula oo waay ragga odayaasha siyaasiyiinta alle nin baan arkayay khadka ka arkayay garow inuu jooga u malaynaya oo ka hadlay marka waxaan leenahay muuse bixiyo waa ku ceebooday maradaa kaaga dhacday masaasay ixtiraaf ku raadinaysa wiilasha yararka youtuberada dalxiiska ku yimaad inaad ku dhigto tiraad ii qabta ceeb reer somalilandna waa ceebaysaa marka waxaan leenahay fariinta hala geesiiyo reer somaliland gaar ahaan madaxweyne muuse biixi waxaa la isaga soo amrooyay wiilka halay qabto reer puntland baa laga sheegay calanka wuxuu isku soo sawiray puntland iyo dareenka ciidan dareeska ciidanka isku soo sawiray saa igu dhiga ila allaadi riyaa ilaah yaqaana dad baa isoo weydiiyeen cabdisalaam khadka hore markuu isticmaali jiray miyuu wax sheeg ninkan yaraayo tiktokero margarowe dalxiis taga boosaaso gobolada puntland maalba meel dalxiis ka dhiga buu ahayo dalkiisa qurxiisa soo bandhiga marka muuse biixi waa cadow wuxuu wiilka ayaka ku haysto annagu garan mayno intaasaan caawa fariintan halkan uga diray si degdeg ah bilaa shuruuda in loo soo daayo baan rajeynayo muuqaalkan hadduu kusoo gaaro ii sheer garay muuse biixi iyo somaliland ha aragtay madaxdu laygtuma waxay iga saacidaysaa dad badan in muuqaalku gaaro boggeygana follow youtube-kaygana subscribe boggana mar kale follow isma dhaafno muuqaalkaa sheer badan asxaabtaa la wadaag isma dhaafno